الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وسورة البقرة آيات الله بقول تضباطا يشن قال الله تعالى إلهي بأوحل يا الذين يأكلون كوا عنا يبو الهيد الربا وحربا الله يقام لا يقومون يسسوتا ما ينقيامها إلا كما سديم بيسوتاغيان يقوم ويسوتاغو الذي قفك يتخبطه دردري الشيطان شيطانك قفك دردري من المس والي وكسميه درادي ذلك أرنتاس waxay ugu dhacday بأنهم قالوا iyagu waxay yiraahdeen إنما البيع iibku waxa uu la mid yahay mithlu riba ribadoo kale وأحل الله البيع إلهينا wuxuu xalaaleeyay iibka وحرم الربا ribadana wuu xaaraantinimay فمن جاءه قفك ay u timaada موعظة من ربي وأنا إلهي سحقي سكتمي فانتهى iska daaya فله ما سلف wuxuu leeyahay wixii hore وأمره إلى الله arrinkiisuna ilaahay buu yaala ومن عاد قفك كل نقض الربا فأولئك أصحاب النار هو سنارتي لساحبهن هم فيها خالدون ويكواريا يمحق الله الربا إلهي الربا ذو بابيا ويربي الصدقات صدقوين كانوا كبعيا والله لا يحب إلهي ما جعل كل كفار متقال لما بضن أثيم أودن بيلاه إن الذين آمنوا دتك إلهي رميي وعملوا الصالحات عمل ذا وناكسن سميي وأقاموا الصلاة صلاتنا أوجد لما يستري وآتوا الزكاة سكذنا قوري ديبي لهم وحي إليهين أجرهم أبال كودي عند ربهم إله ذا أكتسي كليهين ولا خوف عبسي دشود ما يهان ولا هم يحزنون من مرغون ايان آيات كان دورك soo socdaa waxay ka waramayaan nidaamka wax soo saar ee qaloocan ee islaamku uu diiday oo wax soo saarka ay ku jirto ribada iyo xaaraantu si gaar ah aayaadku ribada ay u xaaraantinimeynayaan marka la eego munaasabada ka dhaxaysa aayadihii hore ee infaaqa iyo wax bixinta farayay iyo aayadan oo ilaahay uu ku xaaraantinimeeyay ribada waxa ilaahay uu soo faray waxa la bixinayaa inuu yahay wax dayiba oo xalaal ah waxa xalaasha ah ayaa halka hore uu soo dhiiriyay wixii xaaraanta buu ka digayaa markaa iyo xoolo ay xaaraantan iyo ribadani ku jiraan in aanu infaaq iyo wax bixintii galaynin si kale hadii loo dhigana halka hore wuxuu quraanku ka soo hadlay sidii maalka loo bixinayay xalaasha ahayd halkana waa halkii laga soo kasbanayay xalaasha ahayd wala labada arimood qiyaamaha qofka la weydiinayo maalkiisi baa la weydiinayaa min ayna iktasaba halku ka soo shaqaystay wa fiima anfaqa iyo wixii uu ku bixiyay meeshu ku bixiyay ribada way isticmaali jireen carabtu waqtigii jaahiliyada ee ka horeeyay islaamka oo qofka maalqabeenka ah qof kale wax siinaya amaada u isticmaali jireen taasay u badnayd marka waxay oran jireen marka waqtigii gaadho ataqdi am turbi miyaad soo celin doontaa deyntii mise muddada dheeraysanaysaayoo waad kordhin doontaa dulsaarkii qofku isaga markaa ka jawaabaya waxa laga yaabaa kordhintaas inay noqoto shayga laban laabkii iyo toban laabkii hadduu bil qaatay kolba siduu kordhinayo inay 10 bilood ku gaadho 10 jeer laabo waa ka ilaahay aayadda soo dejiyo uu leeyahay wala taakulu riba ad'aafan mudaacafa ribadii ha cunina iyadoo sii laabantay quraanku sidaa u xaaraantinimeeyay aayadahani waa aayadii ugu dambeeyay soo degay nabiguna calayhi salaatu wasalaam
ummadda aad buu uga degay shirweynihii ugu dambeeyey xajka xajatulwadaac waxa uu lahaa kullu riba kastoo jaahiliyadii jirtay waa mowduuc taxta qadamay waa laga guuray cagtan hoos geliyey ribada u horeysa la dhaafayaana waa ribadii adeerkay cabaas ibnu cabdilmudalib oo ganacsado ahaa wuxuu dad hadda ku lahaa waxba kama jiraan sidaas ilaahay uu ku xaaraantinimeeyay ilaa qiyaamaha xaraam ku tahay oo lagaga hadhaya marka baasha ribada la yiraahdo adraar iyo dhibaatay leedahay aad u badan adraarteeda iyo dhibaatooyinkeeda waxa kamid ah inuu ugu horeyn bay ilaahay ogeysiiyay dadka riba cunayaasha inay rabbi iyo rasuul la dagaalamayaan ilaahay iyo rasuulkiisa qofka riba cunaha la dagaalamaya hadduu rag yahay hadduu dumar yahay hadduu dowlad yahay hadduu sharkad yahay iyo hadduu shakhsi yahayba waxaynu ku haynaa aayaadkaynu ku arkaynaa waxa ribada maalku ku jira inuu yahay baraka la'aan ribadu baraka la'aan bay dhashaa yamxaqu Allahu riba wa yurbi sadaqaat adraarteeda waxa kamid ah cadamul istiqraar wa xagga dhaqaalaha dib ku leedahay ijtimaaciya xagga bulshada dhexdeeda oo waxay keentaa waxa loo yaqaan muranka qofkii wuxuu qaadan kari waaya waa sidii qamaarka oo kale oo dulsaarkan faraha badan marka hore si dalaq buu odhanaya si dhib yar goodho markay intee oo jeer laabanto ayuu fakanayaa dabeedna waa la dagaalamayaa waa la isxidhxidhayaa waa la ismaxkamadaynayaa balaayadaas oo dhan baa daba taagan marka taraabudkii iyo isku xidhnaantii xagga bulshada way la dagaalamaysaa bahasha ribada la yidhaahdo adraarteeda waxaa ka mid a maalkii muslimiintu gacanta cadowgu gelayaayo wax badan oo xoolaha muslimiinta baananka gaalada yaalaan ribadana way uga tagaan hubbaa loo soo siiyaa gaalada muslimka lagu laayo ama kaniisadaha la siiyaa nimanka boobabka ah ee mishankee diinta kiristanka faafinaya si loogu wareejiyo si kale haddaynu u dhigno casrigan aynu joogno yusama alisticbaad اljadiid addoonsiga casrigaa baa la yidhaahdaa amaahda ribada wadata cid walba sanka laga gelinaya dowladda shaksiga ka qaxoontiga markuu yar saldhigo ayaa la odhanaya baankan wax ka amaaho dariiqo dadka lagu xidhxidho wey markaa hadhow waxaa la odhanaya mabaadida yadaad fulin sidaa maad yeeli wixii aan kaa dayno aan kaa sidaa kaa yeelo waa musbaar yaroo dadka lagu gujiyo lagu gorgortamo adraarta ama dhibaatooyinka diintay leedahay bay ka mid tahay nacdal inuu qofkii waa malcuun riba cunuhu ama ummadda ribada cuntaa waa malcuuniin nebiguna uu nacdalay calayhi salaatu wasalaam aakila ariba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayh aw shaahida qofka ribada cunaya ka cunsiinaya ka qoraaga ka markhaatiga intaba nacdal baa dusha looga tuuray dadka riba cunayaasha ah hadday ribada ka tanaasuli waayeen dowladda islaamku way la dagaalamaysa rasuulku qoraal buu u sameeyey sala allahu calayhi wasalam asxaabigii maka ka madaxda ahaa cataab ibnu asiid la odhanayey waxau ihi qolyo la yidhi ribadii bay ka hadhi waayeen markii la xaaraantinimeeyey soo qabqaba buuri oo la dagaalan haddii ay ogeysiis dagaal ogeysii buuri sidaa ilaahay rabbi iyo rasuul dagaal bay idin ogeysiinayaan adiguna dagaal ogeysii buuri nimankaasi haddii ay iska dayn waayaan waxa ribada loo yaqaano waxay leedahay suul khaatima waxyaabaha ilaahay khaatimada uu qofka kaga xumeeyo wey waxay leedahay cadaab barsakhiya intaan kii aakhiro la gaadhin cadaab caalamka hoose ee qubuuraha qofkii lagu cadaabayo markii adduunkii uu ku soo cadaabnaa qabriguu ku cadaabay tii aakhirana dee waa kan ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun nebigu calayhi salaatu wasalaam habeen la dheelmiyey ilaahay wuxuu tusay nin webi dhiiga ku dhex jira webiga dhiiggaa markuu isdhaado ka soo bax ee qarka uu ku soo dhow yahay mid baa webiga qarkiisa taagan oo dhagax weyn afka u gelinaya bartankiisuu ku noqonaya godkii dhiigga webigii dhiig ahaa buu dhexda ugu dhacaya sidaasuu ku jirayaa weligiiba markay malaa'igtii u fasiraysayna waxay dhahan waa riba cunayaasha oo dhiiggii dadka sidaa u jaqayay marka adraarteeda iyo dhibaatooyinkeedu saasay u badan yihiin dib haddii ay ugu noqonno mustafaadaadka aayaadka yaa ayuha aladiina aamanuu laa taأkulu الriba aladiina yaakuluuna riba dheh dadka ribada cunaya
cunitaan buu halkan ilaahay uu sheegay miyay xalaal noqonaysa hadduu daara ku dhisto ama dhar ku iibsado ama dad kaleba siiyo maya laakiin cunitaankii waxaa la mida isticmaal oo dhan waxa cunitaanka halkan ilaahay uu sheegay cunitaanku waa waxa u badan ee wax loo qaato dadku waxay isleeyihiin ama imika cun ama mar dambe cuno calafkaa iyo cunadaas u badan waxa dadku isticmaalo si kale haddii loo eegana waa nooc ceebayna ha cunina wixii xaaraanta ahaa markaad xaaraan cunto wuu sii foolxun yahay ribo waxaa la yidhaahdaa taa aynu soo sheegnay waa lacagta la isamaahiye dulsaar kale ama waa amaah kastoo dheef soo jiida waa ribada amaahda gasha ribada labaadna waxa weeye ribada iibka gasha wixii lacaga iyo wixii cunno ah oo labadii shay ee isku midka ahaabaa la kala badinaya ama waan la kala qaadanayn si dhaqso ah tadkhul fi lmadcuumaati waannaqdayn lacagta iyo raashinka gelaysa riba alfadli waa riba naasiya ribadii amaahda iyo tii kala badinta labada qayboodba way noqotaa faa'iido badanoo qofku alaabtiisa uu saaro ribo lama yidhaahdo siday dadka qaarkood u yaqaanaan macaash badan in la saaro uu saari karaa qofka bacmushtariga laakiin inuu dadka u naxariista un wey laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaydaanu min almas qofku shaydaanku derderay siduu isu taagaa dee u dhacdhacaa waa qof suuxdin leh silicsan kolba circiraya marka culimadu waxay u badan yihiin calaamada inay tahay calaamo laga muujinayo rima cunayaasha oo maalinta qiyaamaha lagu garanayo qofba ilaahay calaamo iyo ceeb buu ka muujinaya halkaa markay ka soo baxaan maxsharka iyo maalinta ilaahay la hor taagan yahay astaantaasay leeyihin oo dad wada heedada ahoo sidii xoolihii muqloobay ee sunta shilinta la ciirciirayay saasoo kale heedada u yihi marka waxaa la garanayaa kuwaas inay yihiin kuwii dadka dhiigooda cabi jira ciirciirkaasi noloshan adduunyadana wuu noqon karaa bay leeyihin culimada qaarkood oo nolol fadhida maaha beriyo dhoweyto waynu garan karaynaa oo sanado aan badnayn ay ka dambeeyeen gebiga caalamkuba uu dawakhay weliba caalamulkufr iyo baanankii ribada isticmaali jiray waa wada kaceen waxa aayaddu ay noo muujinaysaa shaydaanku inuu dadka waxyeeli karo siday dee bani aadamkuba wax isu yeelaan oo qofkii uu derderi karo oo markaa maskaxdiisii iyo jidhkiisiiba uu saamayn karo waa ka ibnu qayim raximah ullah markuu ka hadlay uu leeyahay waalida qofka ku dhacda ama suuxdinta ama maskaxda midina waa mid jidh ahaana midina waa mid ruux ahaana markaa ta jidhkunbay daweyn karaan buu idhahdaa ruuxda dadka dhakhaatiirtu laakiin ta ruuxda culimadaa daweyn karta waanay jiraan dad dafiray sida firqadaha daalada almuctasila oo kale inaanu shaydaanku qofkii galayn wax la yeeli karayn waxyaabaha aynu ka faa'iidaysanayno waxaa ka mid ah aayadda nimankani sida yuhuudda iyo gaalada u xalaashadeen ribada waxay ka dhigeen ribadu inay ka xalaalsan tahay iibka aan ribada lahayn iibka aan ribada lahayn iibka ribada le iyo ribada dulsaarka ah ayaa ka xalaalsan waxaa laga fahmayaa inama albaycu milu riba oo waxay idhahdeen iibku wuxuu la mid yahay ribada waxay ujeeddadu noqonaysaa xagga xalaalnimada ribada asal ku aba iibkana waxaa la odhan karaa wuu raacayaa waa la mid halkaasay ka gaadheen marka taana waxaynu ka fahmnay xumaan wadayaashu xaaraanta aada u xayeysiiyaan had iyo jeer ilaa ay dadka uga dhigi karaan inay xaaraantu ka xalaalsan tahayba xalaasha مشاعرات قبيه وحول ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه دول سفين هي أبارو وحول دول كاسي عركي بابا دولكي بابا عرك الله مد غيب هل كي لقى أوران لها هل كوكا أوران لها عركي با حقا عيرضة عيدة دولك الله مد غيب لأن دولك هي عيد لها يا وحول باشي سيدي أبارو نقطع عركي دولكي سوقوا قاعدين دولكي بابا عركي الله مده oo cirkii baaba casaankii iyo ciidii iyo boorkii asal ku ah waxaynu ka fahmaynaa aayadda xalaashii xaraanta inuu ilaahay hayo subxaanahu wa tacaala wa xalla allahu albayca wa xarama riba sidaasay yidhaahdeen iyagoo aanay waxna xalaalayn karin waxna xaaraantinimayn karine
عدة وحنا حلاليسة وحنا حاران تنميسة إلهي وي إلهينا الربا حاران كدغاي بيعنا حلال بو كدغاي الربا الهين ولماذا waxay leeyihiin waxa laga fahmi karaya aayada faman jaahu maw'idatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah aayada waxay sheegaysaa qofkii ribada ka joogsaday markii la xaraantinimeeyay wixii hore xoolihii uu ka dhaqday ribada iyo wixii uu ka cunay soo celi loodan maayo waa loo deynaya ilaan arintaas waxay intii aan la xaraantinimaynin alfay wixii uu cunay waa calfaday hadduu de halkaa ku joojiyo weey oo uu toobad keenay fantaha marka haddii qofku isaga oo aan ogeyn shaygan xaaraantinimadiisa ayuu ka shaqaystay markii culimadu u sheegeen ama cilmi ahaan uu ku ogaaday waxaan inuu xaaraan yahayna uu joojiyay oo uu ka toobad keenay wixii hore calfay baa marka laga fahmayaa bay leeyihiin aayaadku waxay tilmaamayaan intaan aayaadku soo degin dadka xilma saaray marka qofkana maalintu ogaado waxaan inuu xaaraan midna waxyaaban balwado kale u iibin jiray qofkii tusaale balwado kale u iibin jiray waxyaabo ka faraqabsaday maalintii uu ogaaday loo sheegay leeyahay waa xaaraan ayaa wuxuu yidhi anu xalaal baabaan u haystay mar hadduu xaaraan yahay joojiyayba intii hore waa loo deynayaa bay leeyahay maalul xaraamka wixii hore qofku miyuu haysan karaa mise ma haysan karo haddii isagoo og xaaraantinimadiisa uu dhaqayay oo uu kobcinayay oo badinayo saa ku dhaqday waa isdhaafinaya laakiin haddii aanu ogeyn oo markuu ogaaday uu joojiyay intii hore uu qaadan karaaba laga fahmayaa bay leeyahay aayadda waxa aayadda aynu ka fahmaynaa ribada iyo xaaraanta oo la deyn waayo in laguba gaaloobi karo wallahu laa yuxibu kulla kafaarin afiim kafaar afiim waa mid gaalnimo badan oo dembiga badan oo dembi badan qofka had iyo jeer xaaraantan cunaya marka wixii xaaraan u arkaya qofka hadduu yidhaahdo sidaa gaaladu bay yidhaahdeen waar idinkuun baa waxaan sheegaye faa'iidada caalamku casrigan aynu joogno waa ribada adeer qaar wadaadaan baa dadka riba iyo wax u sheego diinta meel dambe ku celinaye diintu waa casri mar walba hore u soconaysa faa'iidada ma diidayso waa faa'iido waxani hadduu sidaa u macaaneeyo u xalaashado uu ku gaaloobaya oo culamaa aqeeda waxay isla waafaqsan yihiin shay quraanku uu sheegay xaaraantinimadiisa la isku waafaqsan yahay qofka xalaashada inuu ku gaaloobayo waxyaabo aynu ka faa'iideysanayna waxa kamid ah aayaadka aynu akhriyayno xaaraanta waxa qofka u diidi kara aqeeda wanaagsan iyo cabsi alle iyo amal wanaagsan qofka hadduu aqeeda fiican leeyahay إن الذين آمنوا عمل في عنا سمينا يلا أقبلي وعملوا صالحات عبسي لنا أوليه وتشوشين كراوحة لكن قفان عمل إيه عقيدة إيه عبادة مدنا لها نوع عليها بلا إلا قاعدة ذا سعادة ذا ينرشوا ونكسنين وحي كترتا تا إلهي وشيغا يوها إن إلهي رميان الضومه كأمر قاتان وعمل فلان حاران تإسكد أيان لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مستفادات كاسنا وكوين كفى استننا آياتين وكقاضنين وهذا ما أقوله وأستغفر الله الله سبحانه وتعالى أعلم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد والله بقول تضباطني سيدات سورة البقرة أي نكبل علينا قال الله تعالى إلهي وحر يا أيها الذين آمنوا دتك إلهي رميو اتقوا الله إلهي كعب صدا وذروا إسكدايا وكتغا ما بقي وحي هري ومن الربا ربا دي عددك كلها يدينا إن كنتم مؤمنين أدى إلهي رميسنتين فإن لم تفعلوا هدي أيضا سدا سمين فأذنوا وحا أغاتان بحرب من الله ورسوله دقال إلهي الرسول كي سيدين كغاي من دون قوى أو ديار قروبة وإن تبتم هدي إلهي وصول نقطان ويسكد إيسان ربدي فلكم وحا ليدهين رؤوس أموالكم حولهن انتي رأس مالك هيدا قفك ما هيسان لا تظلمون
idinku cid ku gardaroon maysaan oo waxba saari maysaan ha saarina walaa tudlamuuna idinkana la idinku gardaroon maayo wixiinii wax la goosan maayo wain kaana duu cusrati haddii uu jiro qof caydha dayna lagu leeyahy fanadiratun fayajibu nadira waxaa waajibaya in la sugo ilaa maysara intuu waxelayo oo iska bixin karaya daynta wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan khayru lakum way idiin wanaagsanta oo kaba cafidaan qofkii in kuntum taclamuuna haddaad garanaysaan oo cilmi jiro wattaquu waxa aad ka cabsataan yowman maalin waa qiyaamaha turjacuuna fiihi maalinkaa dhexdiisa waxaa laydiin celinayaa ila allah ilaahay baa laydin hor celinaya laydiin celin doonaa laydin horgeynaya uma marka ilaahay laydin horgeeyo kadibna tuwafaa kullu nafsi naf walba waxaa loo dhammaystirayaa maa kasabad wixii ay shaqaysay wahum laa yudlamuun iyaga oo aan lagu gardaroonayno waxoodii waxba aan laga dhimayn waa aayaadkii ribadun baynu kusii jirnaa ibn cabaasna radia allaahu canhu wuxuu leeya waa aayadihii ugu dambeeyey qur-aanka soo degayoo wax laga nasakhayna ma jiro iyo wax laga bedelay toona marka yeedh baa ilaahay uu soo celcelinaya yaa ayuha aladiina aamanuu oo qur-aanka aada ugu soo noqnoqota yeedhmadaasi waxay sheegaysaa qofka sidaa cajiibkaa ilaahay ugu yeedhay ee iimaan loo qiray tee inuu ilaahay ka edebsado ka amar qaato yeedhmadu caynkaasi haddii iimaan laguu qiray ilaahaad rumaysnayd iimaankaasi wuxuu sheegaya inaad ka amar qaadato sidaa daraaddeed baa wuxuu odhan jiray asxaabiga tafsiirka aadka u yaqaana ibn mascuud haddaad maqashaba baaqaa yeedhmada ah waa baaq miisaankiisa leh muhiimadiisa leh dhagaha furo waxaa lagu farayaa khayr weyn oo lasoo wado ama balaayo weyn oo lagu diidayo waasaynu horeba usoo xusnay saddexdii arrimood baa ilahay u israacinaya aamanuu ittaquu in kuntum mu'miniin ereygii iimaanki iyo taqwadii baa soo noqonaya taqwadii iyo iimaanku waa shayga qofka dhiiri geliya si waajibaadkiisa u guto iyo wixii xil saaran waa shayga qofka xejiyaha u ah ee xaaraanta ka ilaaliya haddii iimaankiisuna qooman yihin alla kacabsina aanu lahayn wax joojinayaa ma jiro aayadda laba arrimood buu ilaahay istabageliyo yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah dadkii ashahaadanaya alla ka cabsada marka dadka ashahaadanaya ma laha wada alla kacabsi ma wada leh ee dad badan oo ashahaadanaya ayaa alla kacabsigoodu aada u yaryahay innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin markaasaa isagoo camal falayaba laga yaaba cibaadadiisi inay si noqoto waayo taqwadii baa ka dhiman shardiga aqbalka la iskulamana yaabo haddii lagu dhaha ilaahay ka cabso alla kacabsigu waa waxa u weynaa ilaahay ummadaha u dardaarayey farayey rususha u farayey yaa ayuha الnabiyu itaqi اllaah nebi maxamed baa lay nebiyow ilaahay ka cabso de rasuulka ilaahay haddii la yidhi ka cabso adiguna hala yaabin marka lagu dhaahdo waar ilaahay ka cabso dee waanaad tidhaahda alla waa ka cabsanaya adiguna waad mahadsanta wadaruu maa baqiya min الriba in kuntum mu'miniin wadaruu maa baqiya maadaa ibhaamkaasi wuxuu tilmaamayaa wax kasta oo ribo ahaayoo qof ciduu ku lahaa iyo heshiisyadii uu saxeexay ee hore uu u galay ee weli ribadoodu ay ka maqantay inuu halkaa ku joojinayo haba yaraado waxaas arrintaasi waxay meesha ka saaraysaa falsafad ay dadka qaarkood baryahan dambe wareejiyaan oo odhanaysa ribadu haddii ay yartayna waa la isticmaali karaa haddii ay badan tahayna waa xaaraan waad ka arkaysa niman yidhaha waxbaanu wacdinaaba oo jannaladii iyo meelaha ka soo baxaya odhanaya ribadu waa laba qaybood mid yaryar oo percentagekeedu iyo nisbadeedu yaryahay iyo mid buurbuuran markaa 2% iyo 3 iyo waa la ogolaya laakiin tan kan la ogolayn bay kuleeyahay iyo in 10 saarto 10% waxay markaa soo daliishadaan aayadda aynu akhriyeynay walaa taakulu riba adcaafan mudaacafa eeg waxaa lagu leeyahay ha cunina iyadoo laaban oo sii laba laaban taa waxaa
markaa lagu lifaaqaya aayadda tanaa la socota oo sababta loo diiday adcaafan mudaacafa waxay xidhiidh la leedahay sababu nusuulka oo iyagaa cuni jira iyadoo adcaafan mudaacafa laakiin aayaadkii u dambeeyey waa aayaddan waxay leedahay maa baqiya min ariba wax kasta oo riba ah oo soo haray noocuu doonaya ha ahaado ha yaraado ha badnaado halkaa kaga hadha arrintaasay deedifaynaysa haddii meeshii iimaan jiro wey qofkii aan iimaan lahayna wax walba wuu xalaashan karaa fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allaahi warasuulih faa'iidada ku jirtaa waxa weeye si adag 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 baa ilaahay uu tilmaamayaa dembigan weynaantiisa oo dunuubtoo dhan dee qofka gala had iyo jeer qur-aanka iyo xadiidku waxay idhahdaan waa la cadaabaya cadho alluu leeyahay sidana waxanaa ku dhacaya laakiin dembi qofku intuu galay la yidhi ilaahay baa la dagaalamaya waa halkan oo aynu hayno iyo qofka oo la dagaalamo awliyada ilaahay iyo mu'miniinta man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb awliyada ilaahay iyo dadka alle ku xidhan ee wanaagsan ee fiican ee alle ka amar qaata qofka ka dhammaan waaya ee dhiba anaa la dagaalamaya baa ilaahay macnaha kabiiranimada dembigan inuu yahay dembi aada u sii weyn ayay tilmaamaysa bal adu waxaad qiyaastaa ummaddan oo ilaahay la dagaalamayo kabtood ma yaala dhinac walba ilaahay wuu kaga imanayaa ina rabbaka labilmirsaad ilaahay dhabagal buu kugu jiraa wuxuu kaaga imanayaa meel aanad filaynba meel aanad filaynin ayuu ilaahay kaala dagaalamaya qofku haddii uu yahay qof ganacsada ama sharkaduba ama dowladduba oo ribadaa ay iska dayn waayaan dagaal unbaa ku socda war imika xaggee wax walba hagaajinaye xagge laynaga haystaa dee xagga lagaa haysta waa inaad garataa waa dagaalkii ilaahay baa kugu socda dagaalkaa ilaahay u noocyo badanaya jinka insiga abaaraha cudurrada waxaanad garanayn baa ku daba soconaya faadanuu bixarbi min allaahi warasuulih adduunyadana qofkan waa lagula dagaalamayaayo dagaalkii macnawiga ahaana wuu jiraa kii xisiga ahaa la arkayana wuu jiraayo waa kaa nebigu yihi qofku hadduu dayn waayo ribada gacan ha la saaro waa la dilayaa tacsiiran war waxaan maad joojina maad ka toobadkeeni maya madaxweynaha muslimiintu wuu dilayaa qofka ah haddaanu de isagiiba riba cuno ahayn isagii hadduu riba cuno yahayna dee allah ka qaban waxaa kaloo inoo faa'iideynaysa aayadda qaybta ilaahay uhi wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun waa qaacidada amaahda wey qaacidada u taalla amaahda la isku yeesho sida loogu kala baxayaa waxa weeye laa tadlimuuna walaa tudlamuun qofkii amaahda lahaa waa inaanu dadkii waxba saarin waxaasaa la isku lahaa wax la saari karaa ma jiro xataa dheef iyo manfaco iyo waxba kama macaashi karo waa qaacidadu fuqahada dhexdooda macruuf ku ah kullu qardin jara nafcan fahuwa riban amaah kastoo anfac soo jiida iyo dheef waa ribo waxaanaan ku amaahinayaa laakiin aniga wax iga iibso aniga unbaad wax iga iibsanaysa ma lacagta waxaan ku abaahiyey si aad kambanigayga iyo aniga wax iga iibsato markaa dheef maadaamay soo jiida waa xaraam laa tadlimuuna wey walaa tudlamuunana waxay u taagan tahay qofka haddii wax laga amaahdo iminka waaba inagu badan tahay oo wixiisi qiimo dhacaan inaan waxaa qiimo dhacay la siinaynine wixiisu maalintii laga amaahday qiimahay lahaa in lagu siinayo 30 sano ka hor baa lacag caddaana laga amaahdo dee qofkii marka aad imika dayntii ka doonto hadduu lacagtii ku siiyo way baaba'dayba mid guri dhisaysay berigaas baa koob shaha taagan maanta ama qado 40 sano 30 sano ka hor way dhacdaa ama islaanta berigii horeeyay wuxuu ku meheriyey 50 sano ka hor odaygani ama 40 sano ka hor Soomaaliduna meherka way iskala raagtaay 1,000 shilin iyo 2,000 oo shilin iyo waxaasaa lagu meherin jiray oo la oran jiray laba dhaafin karaba dee 1,000 shilin baa aduguba soo qaad masaakiintii waxaasaa laga yaabaa inuu qofku siiyo dee warsanaya berigaana meher dumar baa marka maxaa la eegayaa 1,000 shilin 2,000 shilin 50 sano ka hor ama 40 sano ka hor ari intay goynayeen baa la oranaya ari intay goynayeen geel intay goynayeen raashin intay goynayeen tiiba maanta lagu bixinaya qofkii dee la caameyn maayo isagii haddii loo diiday dulmigii adigina waxa lagu bixinayay deynta walaa tudlamuuna
kii deynta lahaayo lagu dulmi maayo waxaagi la qiimo tiri maayo marka shay kasto marka inflation ku yimaado iyo waxaan la yiraahdo sicir bararka iyo kor u kaca iyo hoos u kaca maalintii wax la kala amaahday waxaan qiimuhu lahaa waa in qofka loo raadiyo tan qof dhintay ayaa deyn laga bixinaya haddii la yiraahdo maanta wixii bariga la kala qaatay oo qiimo dhacay ha la siiyo deyntii kamay dhicin qofkii dhintay wali way dul saarantay marka hooyada meherkeeda la siinayo iyo qofkan la deyn bixinayo waa qiimihii dhabta lagu siiyaa la tadlimuna wala tudlamun qaacidada saawtaal faa'iidada kale jirta waxa weeye in kana duu usratin fanadiratun ila maysara qofka waxa la doonayaa hadduu deyn qaato oo dulsaarkana laga daayay isagu waa inuu soo dadaalaa saynu xagga dambe ku arki doono insha Allah oo deyntii uu iska bixiyaa القرض الحسن أما هذه أن دولسار كلاهين هدو كري وايو أو حكم بحياة أنو هين أو وحبها كرنين أي بس كتهاي إلا السجا وافرا إلا السجا وافرا هذا فرق الجودان السنة دي وأجر به ليس وكايلها وإن كان ذواتي تام ذا هيد فاعل كقادن ليس خبر قادني وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة هذه لها لقف دين قاتي ووحو دين بحقان هينين إلا السجا وفرض إلى أنتو وحلا يأو بحيو وحالات كلوا الأشكتين وحوق بالغ قاعدة هدون سجا حولها يدك وروريتينيو تامها وقف عيدا وحي لهاي الراعية وأن تصدقوا خير لكم إن أتكبع في ذاك خير بدن إن أتكسبت وحي علماء قاركود إلى هذا ميل سنه كفر لبدن فرل inaad ka sugtaa waa faral inaad ka saamaxdaana waa sunne sunnaha saaba ka fadli badan ba faralka oo weysada inaad mar qura weysaysato xubnaha marmar maydhaa waa faral inaad saddex ka dhigtaaba ayaa iyaduna sunnaha faral ka sii fadli badan inkastoo ragga qaarkood taa dood ay ka leeyihiinoo ay yidhaahdaan meeshana faral unbaa ku jira oo faral iyo sunnun baa wada socdee faralka laftiisu kaba maqnaa وأديمك قفك وحن أدوك سوق يقفك ندينتي وإنذار إبراء وذا صعدة إنذار وسجدة يسجد يور دارات الله إبراء سامحات العيا وذا صعدة ويسدن مركو قفك صدح ما يريو تمد كي فرلك هاو كشرع وفرلك كمان مغنى الله ما أورانك رسولنا فضلك على وقولك الدود يسنوه إن أنا مرنا بك فضل بدن كرين فرلك لحديث القصي لها وحول أدون كوح ويقصوا له هذا وحنوش على هاي ما افترضته عليه وحيان كواجبيه marka saamaxaad uu dhiri gelinaya sharciigeen waan tasaddaqu khayrun lakum aad baan ugu farxayaa qof marka la yiraahdo deyntii aan kugu lahaa waan ka saamaxay u kala badbadanaya u ducaynaya qayb ka mid ah culimada waxay yiraahdaan waxa laga fahmi karaa halkan in qofkii aad deynta ku lahayd faqiirka ahaa aad sakaw xisaabin karto oo aad oran karto deyn baan kugu lahaa deyntii sakan u jaray isaa ku ogow ويتصدقوا بالي سكدنا صدقة الله إله إنما الصدقات للفقراء والمساكين آيات سي مركا الإسلام آخرية ضد بي لكن كقضان علماء بدنيو waxay leeyihiin arintaasi waxay ka hor imanaysaa hadafkiisa kada laga lahaa oo ahaa in la siiyo masaakiinta oo awood loo siiyo maamulkooda iyo tasarrufkooda waynaga soo maraynay wa aqaamu salaata wa aatu zakaa sakadii bay dhiibeen wuxuu dhiibay ma jira qof dadkuna hadiya jeer sakadu way ku baaqanaysaa way ku dhax baaba'aysaa mid wal oo saka bixin lahaaba wuxuu raadinayaa wax alla wuxuu deyn ku lahaayo dhan ayuu raadinayaa kolkaas uu ku gaagaabinaya tabatana sakaba ganacsatadii jeer waxa ku badan inay dad deyn ku leeyihiin markay toosh ku raadiyaan dadkay deynta ku lahaayeen ay ku gaagaabiyaan sakadii sakaba ka soo bixi baysa dadka khilaaf kalena wuu jiraa usuuliye oranaya ibraag iyo i'taagu ma akhdigi iyo i'taagu iyo ibraagu ma isku mid ba ama ibraag iyo i'taagu ma isku mid ba bixintiya saamaxaadu ma isku mid ba mise way kala duwan almuhim waa mas'ala khilaafiya oo culimada in badan oo kamid ay leeyihiin faqiirka deynta lagu leeyahay waa in sakada loo dhiibaa
ikhtiyaarka uu yeeshaa hadduu doonana ha kugu soo celiyo oo ha ku dayn baxo hadduu doonana ha la tago awooddii ilaahay uu siiye adigu sii saasaana sax aho dee khilaafka laga baxaya in kuntum taclamuun cilmigay fadli u tahay jumladaas haddaad cilmi leedahay haddaanad cilmi lahaynna dee jaahil waxba ma yaqaanaba jaahil ilaahay iyo sharcigiisa iyo waxa laga macaasho sharcigoo la raacan midna ma yaqaano in kuntum taclamuun واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آياتاسي وآياتي وقدم بيسي قرآن كريم كاها سودقي آياتي وقدم بيسي سودق تويان بي علماء علوم القرآن فنق الله إلاك والرماء هي تاريخ الآيات أي شيء يعني لو بدين اليوم أكملت لكم دينكم قلا شيكتي لكن تلاقوا بدين علماء هذه يشير علوم القرآن كورما والنبي محمد صلى الله عليه وسلم sagaal habeen buu sii noolaa markay aayadani soo degtay kadib marka wuxuu halkaa kaaga muuqanaya qofka bani aadamka ah in saddex arrimood looga baahan yahay si noloshiisa adduunyada u saxnaato saddexda arrimoodba aayadaasaa baraarujisay qiyaamaha uu xusuusan yahay iyo ilaahay uu xusuusan yahay iyo xisaabta uu xusuusan yahay hadduu qofku aakhiro ilaawo oo xisaabteeda ilaawo oo xusuusta alla ka maqan tahay xaraan u joojin maayo bal u fiirso wattaquu yawma maalin ka cabsada qiyaami baa lagu xusuusiyey turjacuuna fiihi ila allah ilaahay baa lagu horgeynaya alla lagu xusuusinaya uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat waa xisaabti naf walba waxa lagu xisaabin doonaa lagu abaalmarin doonaa camal waxay shaqaysay liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir bay u taaganta qofka ilaahay rajaynaya inuu aakhiro is hortaago ayaa amar qaadanaya maalinkani maalin sahlan inaanu ahayn dardaarankii ugu dambeeyey iyo waxyigu ilaahay soo dejinayay ku khatimay waxyigu ilaahay soo dejinayay 23 sannadood ee nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam rasuulka ahaa aayadaasaa lagu gunaanaday oo aakhiro xusuusina markaa qofka aakhiro xusuusani naxariis buu leeyahay turaaluu leeyahay ku talagal buu leeyahay qofka aakhiro ilaaweyna ha sheegin mustafaadaadka aayaadku أين مركا صفحتها أين صار أرجعنا إلى لبعتنية ده يا لقى قادم كريا الله سبحانه وتعالى علم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد والله بقول سيدتني يلا بعض آيات الرقم كذا متر ذي ضايت هاي كم إذا سورة البقرة آيات الله يقان آيات الدين أما آية الدين قال الله تعالى إلهي بأوحر يا أيها الذين آمنوا دتك إلهي رمييو إذا تداينتم بدين مرك الدين قادتان أما قشي إلى أجل مسمى إلى مدمج عابا فاكتبوه قرأ وليكتب بينكم دحدينها قرأ كاتب من قرايا بالعدل سعدالها وقرأ ولا يأبي يديد كاتب كقراءه أن يكتب إنه أقرأ كما علمه الله سدو إلهي وبراي قراء كسحرها فليكتب يستقوها قرأ كرانيقاس وليمللها ويريو الذي عليه الحق قفكي قشق إيا الدين تلقولها أنا هو يريو قراءك وليتق الله ربه إلهي سهك عبصده ربي سيها أبوري كاوحي يرينيا قرانيا ولا يبخس منه يكرم حولها شيئا وحبا دين تاوحو كرم أيه تشرين كالناقصة فإن كان هدويهي الذي عليه الحق قفكي دين تيقشق لقولها هدويهي سفيها قف ما ملكي سؤال ونكسنين أو ضعيفا أمامي تمردرا أو لا يستطيع أمامي ذان كرين با أن يمل هو إنه يساقو قرال كي يرين تسمعيه هدي صدح راسي جران فليملل هيري وليه كي حكتدي ساهاي حلكي سهيي بالعدل السعد هذا هو يري قفك قرية هيدا هذا وحاسو قواهبل واستشهدوا شهيدين لما مرخاتي سوغا
ومرخاتي قلية من رجالكم رجينا فإن لم يكونا رجلين أدانا إلا مرخات الله برجع أهين مرخاتي يدو فرجل وامرأتان نيني يلا بدو مرة هي مرخاتي النقنية كواسو ممن ضد كمذا ترضون أرالي كتهين ومن الشهداء مرخاتي يدا أرالي كتهين وي أن تضل إني قفته دراد إحداهما متكود با قفي با لغا يابا فتذكر دبدنا way xusuusin doontaa إحداهما مدود الأخرى تكله هي xusuusin doontaa way xusuusinayana sidaas xaqi ku sugmaya aayadani waa aayada u dheer quraanka oo dawaadiga arkaya waa safxadan ama xaashi weey ee bog weey kamida misxafka ama kitaabka quraanka 228 aayadaas waxa cagsigeeda oo ka soo horjeeda aayada ku sugan suuratul mudaththir ee loo yaqaano thumma nadara thumma abasa thumma nadara waa mise eray waa shan eray shan xaraf baan leeyahay waa mise xaraf waa shan xaraf haga xarfaha marka la eego waa shan haddii aan cilmiga sarfiga la eegino shayga mudaacafka la yiraahdo ama xarafka laban laabani dee waa laba xaraf oo isku jira laakiin marka muuqaalkiisa la eego ilaa tanba ma tirinayna intii mudaacafka ahayd waa thumma oo laba xaraf loo tirinayo haba isku idqaamaatee iyo nadar oo saddex xaraf marka waa cajiib in aayadina intan gaarsiisan tahay waa iska macluumaad guudune laba aayadood oo quraanka kamidihina xuruufta quraanka oo dhan bay koobsadeen baydaan culimada quraanka warraba aayada ku sugan suuratu ali imran thumma anzala alaykum min ba'di al-gham amaratan nu'asa ya aayada suuratu al-fath u dambaysa muhammadur rasuulullaahi walladina ma'a 28 xaraf ee xarfaha carabigu ka kooban yahay oo dhan waa labada koobsatay waa labada aayadood koobay waxaynu ka arkaynaa marka oo inaga muuqanaya nidaamka dhaqaale sidoo islaamku u tixgeliyay iyo sidoo u saxayo iyo siday diintu ugu dadaalaysaa baa inooga muuqanaya aayadii u dheeray quraanka hadii laga warramay nidaamkii dhaqaale inuu saxnaadaana wax sahlan maaha waxa faa'iidooyin aynu ka soo warramaynayna way ku jiraan waxa dhibaatooyin aynu ka soo warramaynayna way ku jiraan oo waxaaba dee isagoo nidaamkaasi ka qalloocda dhibkiisa kaaga filanba in ducadaadana la aqbali waayo cibaadadaadana la aqbali waayo aakhirana aad ku cadaab mutaysataba maxaa ku harayba in dhaqaaluhu ka xumaado dee waa adduunyo xumo iyo aakhiro xumo in dhaqaaluhu ku hagaagana waa sacaadada daarayn marka iska guclee oo iska shaqayso oo iska ururi arintu maaha inagu uma shaqaysano siday ummadaha shisheeye gaaladu u shaqaystaan oo iyagu waa in dakhli la sameeyo la soo saaro sawaaun min alxalaal aw min alxaraam xaraan iyo xalaal midku doonaya ka yimaado laakiin inagu dakhli baynu soo saarnaa maxay xalaala marka farqigaas ay noo dhaxeeyee hal iska daayo hal iska ilaaliyo ku dayashada dhagahala ee indhahala hadday tahay dawlad iyo haddii ay tahay shirkad iyo hadday tahay shakhsiba nidaamka caalamiga waa caynkan oo dunyadu saasay u shaqaysataa oo adduunyadu waxaasay samaysaa oo adduunyadu sharcigaas u qoran adduunyada ku celcelinayso rag ba xidhxidhay sharci u samaystay oo ururo u samaystay oo majaalis iyo golayaal u samaystay marka haddii aad sharcigoodii soo qaadato waa inaad saa u eegtaa tidhaahdaa ta'siil shareecada la waafajiyo wixii shareecada weydaarsana laga saaro haddii kale waad ku gubanaysa nidaamkii dhaqaalaha sida islaamku u daneeyay nicma almaalu saalix lirajuli saalix alaa macna xadiid nebigu xadiidkii saxiixa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay waxa wanaagsan maal fiican oo qof fiican hayo maal fiican oo xalaal oo qof fiican hayo si xalaal u shaqaysanaya wax la tamaniyo wey aayaddu markaa waxay ka warrantay siyaabaha loo shaqaysto mid ka mid oo ah deynta markaad eegto aayadihii ribada ee aad eegto aayadan deynta munaasabada iyo say isugu xidhan yihiin waxa weeye dadka muslimiinta markuu ilaahay ka xaaraantinimeeyo waxaan la yidhaahdo
deynta ribada leh ayaa wuxuu u fasaxay shayga loo yaqaano alqardu alxasan deyn aan dulsaar lahayn oo hadafka laga leeyahayna waxa weeye dadka in loogu deeqo la caawiyo inaad dadka deyn siisaa waxay sheegaysaa waa inaad sadaqa siisoo kaleba marka ha isku duulinee iscaawiya wey oo wax samaahiya si amaahdiina aanay u lumin rafcu lxaraj baa islaamku sameeyey wixii cidhiidhiya iyo culaysa labadiiba laga dulqaado kan waxaa la yidhi adigu ribada iska daayo haddaad doonayso inaad wax dhaqdhaqaajiso aad wax soo saarto waxbaa lagu amaahinaya qofkii wixiisii bixinaya amaahinayeyna in la isugu daro wixiisii inaanay waxba soo saarin iyo inay ka dhacmaan oo ay ka lumaan waa laba arrimood oo culayskeeda leh hadduu qofkani ku deeqay wixiisii oo dadkii u amaahiyey isagoo waxba dul saarin waa in wixiisii u nabad galaan markaasaa waxaa lagu ilaalinayaa waxyaabo aynu arki doono waa qoraalkii waa qiraalkii waa markhaatiyadii waa rahantii waxaasoo dhan baa lagu adkaynaya liyadmaina qalbu si qalbigiisii u dego aanu dee u warwarin qofkii isagaa wixiisiina u helo marka haddii aynu deynta wax yar dul marno maadaama aayaddii deynta aynu marayno deyntu sidaa aynu imikaba xusayno tawhiiq bay u baahantay tawhiiqu waxa weeye in la sugo oo afartaa arrimood aynu sugnay aynu sheegnay aayadku caddaynayaan macnaha waa markhaatigii waa qoraalkii waa qofkiioo markuu nootaayada qoraya qiraya waxaan anaa la igu leeyay rahantii laga qaadaya kalsoonida ahayd kafaaladii iyo damaanadii tawhiiqu waa kuwaasaa ka mid a kafaalada waa maxay qofkan amaahi anaad iga taqaanaa kusoo hor joojinaya ama damaanadiio wuxuu leeyahay hadduu bixin waayo anaa la igu leeyay waa arrimaha kalsoonida loogu sameeye lagu adkeeyo deynta markuu qofku qaato wuxuu ku xilbixi karaayay kaga hadhi karaysaa afar arrimood midi waa adaa inuu wixii soo celiyo midina waa ibraa in laga saamaxo midina waa xawaala inuu cid kale ku xawilo idhaa wixii aad hebelo igu lahayd hebel baan kuugu reebay iyo qabdu rahn ama alistiifaa min arahn taafraad waxa wey rahantii laga hayay in laga goosto afartaa midunbuu ku xilbixi karaa haddaanu afartaa midda samayn weli waa lagu leeyay marka had iyo jeer wax la isamaahiyo kii wax amaahdayna xil baa saaran kii wax laga amaahdayna xil baa saaran waa wada dhaqankooda wanaagsan marka laga hadlayo waa xusnu liqdaa wa xusnu liqtidaa xusnu lqadaa wa xusnu liqtidaa ka wax lagu leeyahay waxaa laga doonayaa xusnu lqadaa inuu deyntii si wanaagsan isaga bixiyo oo nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina khiyaarakum axsanukum qadaa dadkiina idinku gobsani waa dadka marka deynta la amaahiya si wanaagsan u bixiya haddaad maanta qofkii wax ku amaahiyey aada wixii u soo celiso wakhtigii loogu talagalay si xarago leh oo aada u ducayso oo aada u mahadnaqdo wuxuu la diyaariyey berrina inuu ku amaahiyo soo maaha laakiin haddaad ku gacan saydho oo tidhaahda ammaano kugu raagtay iyo daabaad moodaa oo aad tidhaahda ninku hadal badan ah xoolahaagaaba badanba maad intan iskaba saamaxda maxaad naga wareerinaysa marka horeba la xajeclo xumadaa waa lagugu sheegayay dee intanna maxkamad buu kaaga furfuri doonaa dibna waa soo agmari mayse nin baa odhan jiray aniga dadku markay wareeriyaan kay wareeriye aada igu soo noqnoqdo waxun baan amaahiyaabuu amaahdaasi waxay keenaysaa buui inaan dib igu soo laaban waan ku eryayaa buui amaahda dad baxsadaa jira markay wax amaahdaan xusnu liqtidaa baa markaa la doonaya iyadana xusnu liqtidaa waxa weye markaad dadka amaah ka qaadanayso adiguna tudhaalaha ogow haddaanu haynin waad la saayiri doontaa waad ka sugi haddii wax ka dhiman yihiin waxbaad ka dayn kartaa markuu akhlaaqdii wanaagsanayd isaguna la yimaado waa ka nebigu u duceeye la raxima allahu imra'an samxan idaa baaca waida ishtara waida iqtada allah u naxariisto qofka markuu wax amaahinayo markuu amaah ka qaadanayo dadka saamaxaad ku dara markuu wax ka iibinayo iyo markuu wax ka iibsanaya intaba baashan deynta la idhaahdo in la qaato duruuf adagoo kugu kalifta mooyaane waaba laga digayba waa laga digay nin baa nin su-aalay wuxuu yihi caafimaadkaaga wuxuu yihi da-daada ka waran
markaasuu ugu jawaabay waan caafimaad qabaa xoolahaaga ka warran buu xoolo inteed haysataa wuxuu yidhi taana wuxuu kaga jawaabay dayn la iguma lahaa dayn la iguma lahaa dad maxaa isa seegantiin buu yidhi qaraabada kama ag dhowiye waan ka fogahay buu waa saddex xigmadood waa su-aashii si dadban uga jawaabay da'daada ka warran da lama eegay qofka caafimaadkiisa la eegaa buu leeyahay qofku hadduu weyn caafimaad qabo dee waa fiican yahay hadduu yar yaho uu cudursan yahay wuu gaboobay dhaqaalahaaga ka warran dee dayn layguma laha baan kaga jawaabayo qofka dhaqaalihiisu tirsan yahay waxa weeye qofkaan dayn lagu lahayn laakiin hadduu wax badan rogrogayo daymaysan yahay waxba kama jiraan wixiisa cadowgaaga ka warranna qaraabadun buu ka yimaadaa kuwaana waan ka fogahay meel zur ghibban tasdad hubba waanu yar kala durugsanno annagoo isjecel baan isbooqanaa buu xayraanku meelahaas u badan yahay buu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay qofka dadka xoolahooda qaada isagoo doonaya inaanu soo celinin isaga allaha dilo man akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atlafahu allah layul waajidu yuxillu cirdahu wa cuquubata qofku isagoo wixii heli karaya hadduu dadka warwareejiyo aan waxooda siinin taasi waxay xalaalaynaysaa in la xidho oo la ciqaabo iyo in la caayo labadaba isagaa naftiisii ku xadgudbay nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu shahiido dagaalka gaalada ku shahiido yukfaru lahu kullu shayin ila dayn wax walba waa laga dhaafayaa deynta mooyaane shahiidkii deyntii waa loo haysta marka culayskay leedahay buu ka digayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aahaar bay leedahay cala nafs raad bay ku reebtaa deyntu nafta oo uu kow ka yahay cabsida haddii maalan qofka deyn lagu leeyahy wuu cabsanayaa deganaanshaha ka lumaya laa tukhiifuu anfusakum bacda amniha nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidku uu sugan yahi naftiinoo nabadgelyo haysata cabsi gelinina siday ku imanaysaa waa caynkee waa deynta buu nebigu haddii deyn lagu leeyahy waad cabsanaysa waktiguna wuxuunbuu ka dhaqso badan yahay waktiga iminka kusoo galay unbaad arkaysa gebiga waktigaa sacaadadaa kugu yaraanaysa wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo allujuu ila alkadib wa ikhlaaf alwacd qofku inuu beenna sheego ballantana ka baxo rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka uu ilaahay ka magan galo deynta ee xaaskiisu ay weydiisay wuxuu ihi waxaa jirta buuhi qofku inuu ballan qaado oo uu ka baxo warna uu sheego oo uu been ku daro inta deyn lagu leeyahy ila wax iska basri buu isleeyahy yaan lagu qabsan nin weynimadii baa ka lumaysa qofka marka waa raadka dhibka badan ee mujtamaca ku reebta deyn marka qofku inuu wixiisa ku shaqaystaa mar walba habboon waxa loo yaqaano waxaa jira waxa la yidhaha cawaamil calaa sadaadi deyn waxyaaba qofka ka saacidi kara inuu deyntiisa iska bixiyo oo ay ka mid tahay niyadda wanaagsani oo uu duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka dadka xoolahooda qaata ee doonaya inuu iska soo celiyo allaha ka furdaamiyo ka doonaya dadka xoolahooda inuu qaato oonu soo celinina ilaahay isaga iyo xoolihiisaba ha dilo uu habaaray rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa kaa caawin karaya inaad had iyo jeer u dhaqsato aad ku buuxsan tahay inaad iska bixiso inaad diyaar u tahay inaad iska bixiso mar walba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in saka ahoo loo dhiibay oo guriga taalay waa kii markii uu salaaddii casar ka baxay jabciiba uu jiidho uu cararay dabeedna wuxuu ihi sakadaasaan ku dhaqsanayay inaan caawa gabalku ugu dhicina aan iska bixiyo markaa ku dadaal inaad iska bixiso waxyaabaha kaa caawin kara waxaa ka mid a noloshaadu inay isu miisaaman tahay marka hore deynta qaadanayso waa inaad iska bixin karaysa si aad maaragtay adhow ay kaaga soo noqon karto ducaduna way jirtaa nebi maxamed uu ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam allahuma innii acuudu bika min almaqrami waalma'tham اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك دعوينكii caynka ahaa ee nabiga ka soo arooray way fiicanta qofku inuu ku ducayso aynu noqona marka aayadda iyo tafsiirkeeda fawaidka ku jira aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidayni marka aad dayn kala qaadataan waxa halkaa aynu ka faa'iidaysanay daynta in la qaataa waa laga wanaagsan laakiin haddii duruufi kugu kalifto waad qaadan qur-aankuna waa sheegay xadiidka nebigana way ku sugan tahayoo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka amaahday nin yahuudiya wax ka amaahday qalabkiisii dagaalkana rahan buu u dhigay isagoo diracaasi ama qalabkaa laga hayana waa kii dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam dayntu waxay u baahan tahay si aan dadku u murmin inay muddo yeelato magacaaban
markaa waa saddex qaybood oo dayn aan muddo lahayn oo ata imika la kala qaadanayo iyo dayn muddo leh oo aanay magacawnayn muddadu lama ogola iyo dayn muddo leh oo ay magacaaban tahay taasina waa ta quraanku ina faray qoraalka waxa la yiraahdaa iyo in la kala qorto daynta intay tahay iyo waqtigeeda waa quraanka ina faray wax la fudaysan kara ma aad bay inoogu adagtay inaga qoraalku waxay ka mid tahay badawnimadeena in qofku yiraahdo qofka wax ii qor waxay dadkeenu ka dhax akhrisanayaan kalsooni darra inay jirto sawtaad ogeyd inaynu ehelkahay sawtaad ogeyd in asxaab tahay sawtaad ogeyd in isku wanaagsanay waa maxay maanta nootaayada iyo qoraalkadi weydiinaysa waad iga shakisan tahay miyaa waa badownimada waa badow isu haysta inuu xariif yahay ilaahay baa ku faray subxaanahu wa tacaala marka qoraalku waa lagama maarmaan qofka wax qorayaana xirfadan waa inuu yaqaano kaatib goorta magacan qoraa uu la bixi karaa waa inuu xirfada yaqaano bilcadli waa khiyaamo meesha waa inaanay jirin marbu qoraagu qalooc geliyaa qiraalkii iyo qoraalkiiba uu qaloociyaa ilaahay baa ka warhaya wuxuu leeyahay cadaaladii iyo runta iyo sida jirtee dhabta ah qor qofkan kaatibka ah marka uu wax qorayo xilkaa loo dhiibaa inuu sidaa u fuliyaa waa waajib marka qoraa kale la waayaana isagaa bay waajib ku tahay inuu dadka u kala qoro qoraalka isaga ah waxa weeye waa horumar iyo nicmo iyo cilmi ilaahay qofkan baray taa waa inuu ilaahay uga mahadnaqaa waa ka ilaahay xusay subxaanahu wa tacaala walaa yaaba kaatibun an yaktuba kamaa callamahu llah kaaftu tacliiliya noqonaysa liajli tacliili illaahi lahu liajli tacliimi illaahi lahu maadaama ilaahay uu cilmigan baray abaalgud dadka iyo ha ka dhigo inuu maaragtay nicmadaa ka jawaabo uu qoraalkaa dadka ugu deequ qoro waxaa kaloo rabbi uu xusay halkan qoraalkii inuu ku sii wanaagsan qiraalna inuu raaco qofkii lagu lahaabaa wuxuu leeyahay waxaan caddaynayaa in la igu leeyahay xoolo intaa la eg oo wakhtigaan ku bixin doono oo uu igu leeyahay hebel hebel oo maantoo taariikhdu intaa tahay aan ka qaato waa qiraal waa kaa ilaahay yidhi waliyumlil iladii calayhi alxaqu walyattaqi illaaha rabbah walaa yabkhas minhu shaya maxaa la gudban markaa qofkan qiranayana isna inaanu qalooc gelin ilaa ilaahay dadkan wuu yaqaanaa qof baa isku dayaya inuu waxa uu qiranayo si aan hadhow wax ugu sugmin si dadban u dhigo oo uu ka siiban karo taana waa laga dardaaray baqaasinimada ha iska ilaaliyadaan dadku isku mid maaha deynta loo qaadayo ama qaadanaye ama lagu lahaaba waxaa laga yaabaa qof deyn lagu lahaa inuu nuqsaani ku timaado ama isagaba baahi haysa daraaddeed deynta loo qaadayo marka saddex qof oo cudurdaar leba halkan ilaahay uu ka soo reebayo safiihan aw daciifan aw laa yastatiicu an yumil qof waa safiih qofna waa daciif qofna waa qof aan yeedhintii iyo qiraalkii kari karayno afka kaga dhawaaqi lahaa markaa safiihu waxa weeye qofka haba iska miir qabee dhacdhaciisu uu badan yahay maamulkiisa iyo qorshihiisu aanu fiicnayn dad baa isku waa kayru rashiid tasaruf maamulkiisa xun waxa maslaxadiisaaba ma garanayaba miyaynu siinaa imisa shayga aad siinaysaa isagoo shanlaaba haddii loo sheega iska keen buu leeyahy waxaan intaa iskaba qaado nooca iskadu ku badan tahay wey miisaan la-aan bay sheegaysaa taas marka kaa safiiha ee wax daadaadiya mubadirka la idhaahdo ilaan hadduu kugu soo muruxsado wixiisii kala diro adunbuu ku dul fadhiyaa marka intaanu wixiisa kala dirin waa inaad u ilaalisaa weli mas-uuliyad qaada daciifkuna waa qofkii la daciifee la tamar daran xagga caqligiisa ama jirhkiisa waa ilmo yar waa qof waalan waa qof gaboobay waa qof aan hawshan qaban karayn oo tamardarro jirhkii hayso iyo caqliga kan aan yeedhin karayno waxa weeyaan qofkii la odhan jiray akhraska ama dhegoolaha ee aan hadli karayn ama hagada lahaa ee aan hadalkiisa la fahmayn ma yeedhin kara kaasina kaana waxa halkiisii gelaya oo qiraalkii qaadaya weligiisa aayaddu waxay noo caddaysay inay jirto wilaayatulmaal oo qofka had iyo jeer hadduu dhiman yahay wilaayo caamana waa leeyahy wilaayo khaasana wuu leeyahy dadka qaarkood xigtadooda weli u noqda
ilmaha yar aabbihii awowgii adeerkii dadkaasi wilaayo ay u qaadaan waxaa kaloo weli u noqon kara wilaayo caamaa jirto dadka aan cid ka mas-uula jirin dee dowladda islaamka ayaa cid u qorsheynaysa ama maxkamadda ha ahaata ama cid kale ha ahaato waxaa halkan aynu ku aragnay qoraalkii iyo qiraalkii lagu kabayo markhaati arrinku waa adag yahay waa la kala qoray qiraalna wuu jiray markhaati baa laga maarmaanaysna wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum biictibaari maa yakuun weli markhaati muu noqon wuu noqon doonaa waa markhaati sameeya waa laba markhaati markhaatigii oo dham iskuma jireen min rijaalikum waa raggiina raggaasi waxa ay sheegayaan waa qof muslimiinta ka mid ah waa qof sidoo kale ragga waaweyn ee qaangaadhka ah waa qof sidoo kale ragga miyirka qaba ah waa qof sidoo kale kuwa xorta ah shuruudahaasaa markaa min rijaalikum laga fahmi karaya ragga ah sharcigu wuxuu ogolaya halkan ilaahay uu ku caddeeyey subxaanahu watacaala haddii rag la waayo ama rag aan idhaahda ee raggii aanu dhammaystirayn markhaatiga laba dumari inay geli karaan halkii ninka ka baqan oo nin iyo laba dumara taana ilaahay halkan waa ku caddeeyey shardi kale uu sii xidhay markhaatiga oo ah miman tardowna min ashuhadaa cadaaladii wey waa cadaaladii markhaati walba wax lagama dhegaysto ka faasiqa wax lagama dhegayste ama beenta sheege waa qof looga qaateenahoo hadalkiisa runta lagu yaqaano iyo cadaalad miman tardowna min ashuhadaa oo dadka qaarkood baanad markhaati gashanaynin waxay aayaddu caddaynaysaa labada dumarihi inay markhaati keliya isku yihiin an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma اlأkhraa an tadila iyadoo laga yaabo inay midigefto oo dabeedna tii kale ay xusuusiso waxaa laga diyaar garoobayaa markan labada laga dhigay intay midigefto waa inay ta kale xusuusin kartaa mid baa gefi kartoo dabeedna ta kalea xusuusinaysa xusuusintaasi ixdaahumaa waxaa la soo celiyey ixdaahumaa baa la soo celiyey waxaa suuragala labadooda inay midiuun gefto dhowr jeer markay markhaatiga furayaan waxaa kaloo suurtagala in tanina maray gefto tanina maray gofto ixdaahumaa oo la soo celceliyey taasay tilmaamaysa waxaynu halkaa ka fahamnay labada dumara markay markhaatiga furayaan sida maxkamadaha qaarkood sameeyaan inaan la kala reebayn oon la kala faqinayn oo aan la odhanaynin sida markhaatiga la sameeya adigu imika soo gal ka kalow dabadda joog ayay odhanayaan waa laba la yidhi way isku lamaanyiinba oo way isxusuusinayaan labadoodu mar bay soo wada gelayaan marna way wada mar tanaa hadlaysa ta kale markay hadlayso way odhan kartaa meesaa ma ahayna saasay heblaaye ahayd labadoodu lifaaq bay isku yihin way isku kabayin way isxusuusinayaan lama kala reebayo ayaddu maadaamay dheertay waktiguna aanu inoo saamaxayn qaybta dambe cashar kale aynu qaadan insha allah wahada ma aqulu waastaqfiru allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu